maalinta xuska naafada adduunka oo sanad walba 3 bisha Diseembar laga xuso guud ahaanba dunida ayaa waxaa maanta si ballaaran looga xusay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Munaasibadan oo ka qabsoontay Hotel Imperial ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka naafada Somaliland waxaana ka soo qayb galay ku dhawaad 300 oo naafo ah oo isugu jiray haween u badnaa hooyooyin, waayeel iyo dhalinyaro. sidoo kalena waxaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ururka naafada Somaliland Mudane Daahir Xaaji Jaamac Diiriye iyo mas'uuliyiin ka socday axsaabta mucaaradka ee wadani iyo UCID oo ay matalayeen Yuusuf Kayse Cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID iyo Yunis Axmed Yunis xogayaha ee xisbiga wadani. ugu horeyna waxaa madasha hadalka furay gudoomiyaha ururka naafada Somaliland oo ka sheekeeyay duruufaha ay ku sugan yihiin dadka naafada isagoo sidoo kalena baaq u diray xukuumadda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. maanta waa maalintii naafada anigoo ka faa'iideysanaya xuska maalinta naafada adduunka fariin baan u diray xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ugu horeeyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne sidaan wada ognahay maanta xilliga lagu jiro waa xilli adag duruufo badan baa waqtiga dalka ka jira saameyn badan oo abaareed baa ka jirta xanuunka coronavirus baa ka jira dhowr jeer oo ay xukuumaddu ay wax ballan qaaday oo coronavirus-ka awgeed la ballan qaaday in dadka jilicsan hoos loo eego liisaskii aanu geynay weli jawaab kama helin waxaan kala jawaab ka helin dafcaddii u dambeysay shaqo qaran dadka naafada ah ma hayno waxaan kaloo aan ka hadlaynaa madaxweyne maanta dadka naafada ee goobta isugu yimi waa dad ugu yaraan 300 oo qof oo aragtaan waxaanu ka dhaxaysiinayna 300 oo qof 30 wheelchair waanu kala rogaynay ilaa iyo 4 xalay bilownay dadka inaan goobta keenno 4 xalay ayaanu bilownay in la soo ururiyo kuwooda ugu horeeyay dhaxanta halka waaga ugu bariyay mudane madaxweyne maanta waa ognahay mudane madaxweyne qof kasta oo muwaadin oo Somaliland dari xuquuq u leeyahay asaasiya xuquuqda waxa kamid ah inuu helo kaarka codbixinta waxa lagu jira xilli diiwaangelinta iyadoo asxaabta qaranka la joogto waanu ka faa'iideysanayno oo ay fariintayada iyadoo ay noo qaadi doonaan iyo ay noo gaarsiin doonaan halka tahay waxaanu weynay oo u baahanahay in horta marka hore dadka naafada ah guryaha hoostooda ku nool yihiin ila kumisha gaar looma magacaabine in kii agaha qabay ee aragga qabay ee dhagaha qabay ee hooyadii gacanta haysay ee wax bartay baa 100 gaari loo dirayo oo wacyigelina waxa loo dirayaa 20 oo shaqaale ah oo wacyigelina dadka guryaha hoostooda jooga ee kaarka u baahan inay qaataan kii xalay faalig ku dhacayna han noqdee xaq uu leeyahay inuu kaarkiisa helo oo uu codeeyo goobta wuxuu ku soo gaari lahaana ma haysto cid soo riixi karta ma jirto oo yani markii qofkii waalidka uu soo kaarkiisa doonto qofkii guriga laga qeybanaya dadka naafada ay boqolkiiba sideen wada ognahay waa 15 codkoodu codkaas wuxuu ka go'an yahay qaranka oo dhan marka hore marka labaad wuxuu ka go'an yahay min heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo cod qaranku ka maarma madaxweyne maaha mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa maanta waa maalin habboon waxa weeye fariintayada maanta inaad naga ajiibto mudane madaxweyne oo aad nagu deeqdo marka hore goob gaara oo dadka naafada leeyihiin oo meel banaan aad naga siiso oo magaalada ka baxsan oo la arko bal maayarkii ugu horeeyay madaxweynihii ugu horeeyay noo dhagax dhigaya dhul naafadu leedahay waxaan kala codsanaynaa madaxweyne ka codsanaya Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland annagoo ah ururka naafada Jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne maanta waxaan u jileysanahay qalabka naafada ay ka dhigato laxaadka hadday tahay ulaha indhooluhu u qaato hadday tahay kuwa dhigaha la gashado ee dadka dhigaha qalay ay qaataan hadday tahay kuwa wheelchairka qofka curyaanka lagu riixo hadday tahay biraha lagu boodayo mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa maanta mid goob kasta oo kaar codbixin laga qaadanayo iyo degmo kasta in qalabka loo qaybiyo oo xukuumaddu ay nagu caawiso. intaasi kadibna waxaa mikrofoonka qaadatay Xamdi Cabdi Soogso gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka aragga naafada ka
waxayna madasha ka jeedisay hadallo isugu jiray dhiirigelin iyo dardaaran waxayna sidoo kale fariin u dirtay xukuumadda Somaliland. Maanta halkan hadal badan uma soo istaagin balse waxaan oran lahaa laba kelmadood kelmad dhiirigelina iyo kelmad oo baaq aan u dirayo madaxda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. haddii aan ka horeeyo dhiirigelinta walaalahayga naafada ee goobtaygu la sugan iyo intay daawan doontaba waxaan leeyahay ma tihidin naafo haddii aad aqligiina qabtaan wax walba wad qabsan kartaan dadka naafada ah waa dad wax baran kara waa dad wax dhaqan kara waa dad tabcan kara waa dad heer kasta oo dadka aan naafada ahayn gaari kara waxaan qabaa anigu haddii qofku uu aqligiisa qabo meel kasta uu ku nool yahayba inuu wax walba qabsan karo balse isagu siduu iska dhigo ayuun bay dadkuna u ahaanayaan sababtoo ah qofka marka tiraado waxba ma haystee waxay sii iyo marka tiraado waxaasan haysta wax igu dar way kala duwan tahay marka idinku dadaal la timaadaan ayay bulshada kale aad ku dhexnooshiina dadaalkii idin si labalaabayaan oo idin aqoonsanayaan inaad tihiin dad wax qabsan kara meel kasta ay joogaan dadka naafada ah waxaan ugu baaqayaa inay guryaha ka soo baxaan goobaha waxbarashada inkastoo ay haysan waqti xaadirkan dadka naafada ah waxbarasho ku filan goobaha waxbarashada in iyagu iskood ku soo saaraan oo si goos ah wax u bartaan oo magaranaysa ay bulshada ku soo dhiiraan haddii aan u soo kaco xagga xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay mudane madaxweyne waqtiga doorashooyinka waxa miidiyaha laga sii daaya qof kasta oo maankiisa iyo miirkiisaba qaba wuu codayn karaa balse waqtiga kale qof kasta oo miirkiisa iyo maankiisaba qaba muxuu heli laayay xaqii uu lahaa dadka naafada ah ma haystaan waxbarasho ku filan intoodii wax baratay markay islaan shaqo taga waa la takooraa waxa la ilaahdaa marka loogu soo badiyo ee kor loo soo qaado waxa la ilaahdaa guryaha ku qaata mushaharkiina dabcan qofkii wuxuu dareemayaa niyad jab markii wixii uu bartay uu ku shaqo tagi waayo ee gurigii intaas soo bilood ama intaas sano uu ka sii socday oo dib ugu soo laabto taas wuxuu ku dareemayaa niyad jab waxaan halkan uga baaqayaa dhammaan xukuumadda Somaliland dadka naafada ah dadkoodun baa wax ka dhiga inay kor u soo qaadaan u sameeyaan goobo ay wax ku bartaan soo dhaweeyaan marka ay gaadhaan xilliga ay shaqo tagayeen mar walbana ay garab istaagaan dadka naafada kale waxa madasha ka hadlay xubno kamid ah naafada Somaliland kuwaasoo qaarkood ay madasha ka soo bandhigeen maasooyin iyo gabayo taabtay guud ahaanba dadkii ka soo xaadiray madashaasi annagu arday baanu nahay u bixi wadankaanu nahay dhalinta Somaliland unugyo kamid aanu nahay haddana aan helin daryeel dalkaygii baa hakraday ayaan nala oran camool uryaanaan kici karayn indhoole muxuu arkaa aflaxnaan rabnaa asaaga iyo dhaafno oo aqoonyahan noqono oo bulshada wax barnaan rabnee aqoon baan nala barayn iskuul kullay dhalabadina waa jiraan waxa weeye dadkeenu ama tijaar ha noqdaan iyo ganacsato ama mas'uuliyiin kale oo dawladeed ha noqdaan kullay dadkeena naafada waxtarkooda uma jajabna inta badan uma diyaarsana ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay dhulka iska caawiya aan samada iska caawiye iskaga naxariista dhulka aan samada idinka naxariiste waxaan u diray Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u diray shacabka reer Somaliland kuwa indhaha la iyo kuwa indhaha lahayn kuwa curyaamiinta iyo kuwa lagu hala dhammaan waxaan u dirayaa waa dadkeenii inaan is caawino weeyaan in kuweena maanta xaq waxaan u yeeshay inaan wax barto laakiin inta indhaha ama inanka curyaanka ama inta curyaanka xaq waxay u leedahay waxaan u leeyahay in leed anoo hadalka soo gaabinaya ama hadalka soo gabagabeynaya waxa weeyaan aynu ogaano bulshadeena tabaalaysan dhinac kasta gabagabadii munaasabadana waxaa hadalka iska daba qaatay xogayaha xisbiga wadani iyo waliba Yuusuf Kayse Cabdilaahi oo ah xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID waxayna taabteen doorka ay dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda iyagoo sidoo kalena si isku mid ah uga marakacay
inay xukuumaddu ka gaabisay doorkii ay ku lahayd dadka naafada isla markaana ay xataa tahli kari weyday inay kala soo qayb galaan munaasabada noocan oo kale ah. waxaa dunyadu isku raacday in naafada laga bedelo ama dadka aragga wax ka qaba ama dadka laxaadkooda loo isticmaalo marka dadka laxaadka wax ka qaba ayaa dunidu isku raacday maanta loo bixiyo marka maalinta dadka laxaadka wax ka qaba ayaan hambaliyo u diraynaa waxaan u rajaynaynaa nolol wanaagsan iyo waayo wanaagsan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhameeyo waqtigooda iyo dhammaanteenba waa maalin qiimo badan waa maalin dunida laga xuso waa maalin xusideedu ayna ahayn sheeko ee noqoto shaqo iyo hawl maalmeed marka waxa aad uga xunay in dawladda Soomaaliland matalayaal kamida aynay halkan joogin 300 qof ku dhawaad aynay joogin halkan waxa weeye ayaan darro weeyaan waa guul darro weeyaan waa guul darro dawladnimo weeyaan aad baan uga xunahay waxa weeye in dadkan la dareen noqdo dadkan gudoomiyaha iyo dhammaan dadkii halkan ka hadlay waxay sheegeen baahidooda aasaaska ee nololeed xaq u leeyihiin dastuurku xaq u siiyay dawladnimada xaq u siisay dalku xaq u siiyay diintu xaq u siisay intii maanta way ku ka aradan yihiin dalka Soomaaliland gudahooda iyaga kuna oo muwaadiniina oo najaanab ahayn mas'uuliyadda koowaad Ilaahay wuxuu weydiinayaa madaxweynaha Ilaahay ku weydiinayaa dadkan 300 qof oo naafo halka jooga oo aan matalaad ku lahayn dawladdaada in halka xataa fadhiyaan ay ku qiimeeyaan in uu yimaadaan madaxweynaha Ilaahay ku weydiinayaa bahdil dawladeed bay ku tahay in dad noocana oo aragga iyo maqalka iyo lugaha iyo meel walba laxaadkoodu wax ka dhiman yihiin inay dawladda Soomaaliland aynay dhiiri gelinayn tabantaaminayn ceeb dawladda Soomaaliland ku tahay iyo dalka oo dhan waxaan jecelahay in halkan fariin ugu dhaafo fariintan u dhaafaya waxa weeye ganacsatada Soomaaliland waxa Ilaahay baa xoolaha inii dhiibay haddii dawladda dayacday dadkan ha loo sameeyo iskuulo ha loo sameeyo meelo ay noloshooda wax kala soo baxaan waa in loo sameeyaa dhiirigelin waxbarasho tu shaqo tu muwaadiniin weeye dadkan ka hadlana dad ajnabi ma waddan Somalilandera waa dad dastuurku damaanad qaaday xuquuqdooda asaasiga marka aad baa uga xunahay inay dastuurkii xaqiiqdu siiyay iyo dawladnimadii xuquuqda siisay iyo diintii waxa uu siiyay ay dalka ku waayaan marka waxaan doonaynaa inay ganacsatadu taakuleeyaan waxaan doonaynaa in manhajka waxbarashada la dhiirigeliyo dadkan wax lagu qabto dadkana mid baa oranaya ay isdhiibina inantan oo kale wariyaha oo kale ismay dhiibin wata banaanka u soo baxday wax baratay ummadii u shaqeynaysa dunidii wax tabinaysa wariyad caalamiya TV weyn joogto caalamiya iyadu maanta qof weyn oo dunida laga yaqaan may fadhiisan ismay dhiibin noloshu isdhiibasho ma aha haddii wax lagu qaban waayo ha isdhiibina inta kugu jirto banaanka keen ilaahayna tawakkalo marka dad badan oo ku naafooway halgankii dalkana madaxweyne ku jira ummadda adiguna waxaad sheegatay in halgamaa tahay halganimadu ma ahayn in kursi lagu helo halganimadu waxay ahayd in ummadan loo dagaalamo oo ka wax noqdeen wax loo qabto ka wax qaban wax loo qabto labadaba waa muwaadiniin siman dastuurka xaq siiyay madaxweyne ilaahay ka soo maanta mas'uuliyadda ku saaran tahay aduu ilaahay ku weydiinaya waxa ceeba kuwa ay dadkan hoos yimaadaan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kamid inayna halkan kamid ahayn oo loo sheegay in xafladda ay ku abaabisheen oo ay qaybinayaan ururkii oo naafadii qaybinayaan ma dadka naafada qaybinayaan wax ka sugnaa dadkii caadiga ah bay qaybintii ku soo wadeen dadkii naafada ah bay qaybinayaan dawladdii qaybinaysa wasaaradii qaybinaysa halkay dadkii isku soo jeedlayeen wax isku qaban lahaayeen bay dadkii awoodda midnaay halkan 300 qof joogaan oo hooyooyin u badan oo caruur iyo dumar u badan naafa ay wasaaradii shaqada iyo arrimaha bulshada qaybinaysa waxay sheegaysaa arrimaha bulshada wasaaraddu inay joogin dad ehelkeedu ah
waxay sheegaysaa inay fashilkoodii ay qarinayaan ay ururo hoos ka samaysteen kuwana sharciya kuwana mandate haysta kuwana la aqoonsan yahay waa kuwa haddii ay sharci lahayn xafladan iyo hudheelka ma yimaadeen marka waxaan aragnaa in la gacanbidixaynayo waxoodii la cunay wasaaraddu cuntay dawladdu cuntay hay-aduhu cuneen bulshadu ayna wax qarbixin war ilaahay aan ka baqno dadka wax u tarno dadkana waxa leenahay isdhiibina nolosha halgan bay u baahan tahay waxbaad noqonaysaan mas'uuliyadana kuwa loo dhibayba aadamahana la xisaabtamaya ilaahay hortiisana la xisaabtamaya